Maareynta qof ama qoysi waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu adag ee ibnu aadamku qabto iyada oo ay taasi jirto ayaa haddana waxaa jira dhalinyaro da'yar oo qoysaskooda ku quudiya shaqooyinka adag kuwa dadka kale. Siman Cabdi waa gabar 10 jir oo ku nool magaalada Boorama waxayna ku shaqaysaa xirfadda loo yaqaano baalashka ama caseeyaha taasi oo ugu shaqaysa qoyskeeda oo dan yar oo ku nool magaalada Boorama isla markaana ka kooban 5 qof waxayna ii sheegtay in shaqadan caseeyaha ay ku weyday dhammaanba noloshii dhalinyaranimo iyo sidoo kale waxbarashadeedii. Siman oon maanta kula kulmay mid ka mid ah goobaha ay ku shaqayso subaxii ayaa ka waraystay nolosheeda iyo waxa waqti xaadirkan ku kalifay in ay ku shaqayso xirfaddan caseeyaha. waxay ku kalifay xafdeeda iska danyar hooyaday waa mul aabahayna uu naga dhintay adeer baan isna adeerkayna waxba nooma qabto markuu shaqeeyo 10,000 ama 5,000 buu noo keenaa saasay ugu kaliftay dantaanay tiri hooyaday baana u shaqeeyaa oo xanuunsan. adigu ma leedahay dadka waaweyn oo kala xaafadda u shaqeeya? may waa laba yaryar iyo halkii maka dhashay bes inta ana ugu weyn meesha markii ana ugu weyn meesha maalintii lacag intee leeg baad ka shaqaysaa? 30,000 ama 40,000 ama meelaha baan ka shaqeeyaa. xageed geysaa lacagta aad shaqayso? hooyaday baan u geeyaa oo meel loo dhigta. Adu wax ma dhigataa? ma dhigto maxaan u dhigan bal waxaan iskuul ku dhigtaan haystaa lacag cid naga bixisa ma haysto iskuulka agoominta lege hooyadeena way ka soo kaxayso qof wax u qabta ma haysato iskuulka agoominta markaa geysay dana way ka soo kaxaysay saasaan baalishka u sameeyaa. muddo intee leeg baad imika baalashkan waxaad ku jirtaa shaqadan baalashka? wallaahi aduu ilaa iyo 6 bilood baan ku jiraa bishii 7aad galay imikana 10 jir baa. xageed wax ka baalashaysaa? kolba meeradan tagaa meerad baan fadhiisan jiray meeradina waa lay diiday inaan fadhiisto naagtii lahayd baa igu tiri orodoo dibadda ka shaqee dibadda markaan tagan qofkii gudaha iga yeedhaya waxaan ha u gelin beegoona saawa cuntaynayaan. markaad kabaha baalashayso imise lacagaad qofka ka qaadaa? ku shilin marka labada beer yihiin 2,000. wax dhibaatooyin oo kaa hor yimiday ma jiraan inta aad baalashka ku jirto? may wallaahi waxba dhibaatayga ma hor imani. waxaa jira dhalinyaro badan oo baalashkiiyo waxaan sameeya kuwaasi ma ku dhibaateeyaan? may ma dhibaateeyaan naaga way jiraan ay baalisheeya kuwaabaan la socseegaa. subaxii imisadaad timaadaa magaalada oo shaqada bilowdaa inteen leeg baad shaqaysaa? waxaan shaqeeyaa 7 subaxnimo ilaa iyo 11 aan joogaa markay 1 gaadhana waan hooyadaa. markaan shaqeeyo aroortii duurka marka leedaamo waan qada taga xafdeeda waan ka soo qadayaa galabtaan midda habeenka 9 biirana waan iska hooyadaa. ugu dambeyntii maxaad bulshada Boorama iyo guud ahaan Soomaalida aad ugu baaqaysaa? bulshada waxaan ugu baaqayaa inay soo caawiyaan saan baalishka iskaga daayo oo wax u barto. ma jeceshahay markaa inaad wax barato haddii lagu soo caawiyo? haa waan jecelahay si fiican baan jecel aad madarsadii iskuulba waan dhigan jiray haddana waan sii garanayaa quraanka inaan haddana barto oo saa'id qalan jabiyo.